بارك الله فيك سؤال كله waxay leedahay sheekh waxaan leeyahay gabdho iyo wiilal qaangaad ah waxaan la rabaa waxbarasho iyaguna guur ay doonayaan anigana guurka lama rabo ma ku dambaabaya arinta ayada ha waad ku dambaabi gabdhaha guursadaan daa wiilashan hadaad guur u kala gurto guuri sababtu waxa weeye adiga waxbarasho aad la rabtaa laakiin dadkani baahi baa haysa haddaadan baahidooda xalaal ku xallinin maadaa ilaalin kara ma ilaalin karti gabdhihii meeshaad waxbarasho la rabtay ilaahay ha kuu xifdiye fitna inay dhalataa dhici karta gabadhani waa baahanta adigana baahideedii ma dabooli karto waa inaad baahideedii si xalaala inay ku daboosho inaad ku dadaasho waa haddii baa cid munaasaba aad u hesho gabadha guurkana ha ka daahinin waxbarasho wixii ilaahay u qoray way baran haddii kaleetana hooyo guri bay noqonoo khayr iyo wanaag bay qabsan way dhowrsoonaan sharafkeeda u ilaashanaan haddiiba cid munaasaba gabdhaha loo helo ha loo guuriyo xilli waxaan joognaa aad halis u ah waalid badan baa gabadhu waxba ii baranaysaayo jaamacad bay iigu jirtaa say u hayeen bay garac u soo hoysay walciyaadu billaah oo sharaftii gabadhu dhimatay oo xumaani timid oo aakhiradeedii ku ciyaartay balaayaa taalla meesha adduun balaayo joogtaan numrayna saas daraadeed gabdhaha u guuriya haddaba dad munaasab u heshaan wiilasha sidoo kale xilliga ugu horreeyo guurkoodu suurtagal noqdo ha loo guuriyo leanna waxa weeyaan guurkani waa ilaalin wuxuu ilaalinayaa dadkii buu ilaalinayaa yaa macshara shabaab nabigu sal alay wasalam dhalinyaro guursada buu nabigu sal alay wasalam dhalinyaro guursada maxaa yeelay xubinkiina waa ilaalinayaa sharaftii buu ilaalinayaa qiyamkii buu ilaalinayaa khayrna waa soo kordhayaa marka gabdhaha ha ka daahinina guurka dhalinyaradoo dhan guurka ha la dedejiyo hana la fududeeyo weliba ha la fududeeyo guurka yaan la adkayn shuruudahan faraha badan ka daaya dahabkan imtixaanka ka daaya dahabkan imtixaanka ka daaya labada ruux hadday isguursadaan oo isfahmaan oo isla dhaqmaan shaki ma laha wuxuu ninku hayo waad ka heli wuxuu hayaba waad ka heli adaaba ka daadsanba adaaba ka daadsan saad uga daadsan lahayd farsamadii haddaad hesho oo aad ninka hananto isagii xoolihiisa baadaa iskale laakiin marka horeba shuruudahan faraha badan ee la hordhigaya ka daaya guurka sax ruuxu inuu diin ahaan iyo akhlaaq ahaan ku anfaco oo aad la noolaan karto la dhaqmi karto taasaa asaas haddaad shakhsiga noocaasa hesho wax badan ha sii adkaynin ilaahay wuxuu jecel yahay guurka in la fududeeyo rasuulkiisina sidaasuu jecel yahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh kullamaa uu guurku fududaadana zinadaa cidhiidhi gelaysa mar kastoo guurka la adkeeyana dadku xaajadoodii si kaley ku gudanayaan waa fasaadaynaa marka insha allahu tacaala allah idin barakeeyo khayrka iyo guurka iyo wanaagga carruurteenna aan kula dadaalno insha allahu tacaala daahintana ha laga daayo xilligan khaasatan la joogo maslaxa kuma jirto wallahu aclam